بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashir kale cusub dhageysto ma leedahay nabaradan ka muuqda sawirka kuwaas oo ah nabaro qalalan oo leh qolfo fiiqmayo mararka qaarna wata cuncun aad u bogeysid marka xoqdid markii nabarka la cadaadiyo ama farta lagu riixan aad dareemaysid inay wax ku mudayaan ayna xanuun tahay inaad ku istaagtid meesha nabarka cagta kaga yaalo haddii jawaabtu haa tahay cashirkan adigoo kugu socdaa ee fadlan ka faa'iideyso lana wadaag bulshada magacaygu waa Dr. Mahdi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Ciladan waxaa loo yaqaanaa honqorta ama roqorta cagta, afka qalaadna waxaa lagu dhahaa plantar warts, waana xanuun aad ugu badan Soomaalida khaas ahaan carruurta iyo dhalinyarada. Honqorta ma ahan xanuun kansar ah ama ku faafa jirka, laakiin waa nabar uu keeno jeermis virus ah oo loo yaqaano human papilloma virus. Waxay honqorta ka soo baxdaa meelo badan oo jirka ka mid ah, laakiin midda cagta ka soo baxdo way u nugushahay inay infection qaado kadibna keento barar iyo xanuun waana sababta ciladan badanaa loogu arko dadka qaba la'aanta socdo badanaa haddaan la daaweyn honqortan way iska baaba'daa muddo 2 sano gudahood nabarka marka ugu horeyso uu bilaabanayo uu yar yahay wuxuuna ku bilowdaa sidii dhibic oo kale oo maqaarka ka duwan kadibna waxay yeelataa cuncun aad macaansanayso markaa xoqaysid honqorta waa la kala qaadi karaa wayna ku faafi kartaa cagta waana sababta nabarkii hore meelaha ka agdhow uga soo baxaan kuwa kale cusub sida awgeed waa in aadan dadka kale la wadaagin kabahaaga honqorta cagta way u nugushahay inay wasakh gaarto ama infection qaado sidaa darteed markay infection qaado waxaa loo yaqaanaa caafimaad ahaan infected plantar wart calaamadaha lagu fahmo inay infection qaaday waxaa ka mid ah inaad dareentid xanuun oo aad moodo in cirbad aad ku istaagtay iyo danqasho markii la cadaadiyo ama kaba lagu qaato mararka qaar way gaduudataa wayna barartaa xanuunkeedana wuu sii kordhaa markay saas noqoto ayay badanaa dadka qaba xanuunkan isbitaalka yimaadaan ama dhakhtar raadsadaan honqorta cagta inta aysan infection qaadin daaweynteeda way sahlan tahay oo daawooyin lagu baabi'iyo oo farmashiyada lagu gado ayaa jira oo aanan u baahnayn in dhakhtar kuu qoro laakiin markii infection qaado waa in dhakhtar uu kuu qoraa daawooyin infectionka la dagaalamo taas oo la marinayo nabarka daawooyinkaas waa inay noqdaan kuwa ciribtirayo jeermisyada bakteeriyada iyo fangaska maadaama labadooduba ay hal mar ku wada dhici karaan halkaas ayaan kaga baxay cashirkan wixii su'aalo ah kusoo qor qaybta comments-ka ee muuqaalkan waana mahadsantihiin